وحياتها هاي حكاسي وكفر الدنيا سوالي يجيس أفريقيا أيام كبغنا ترى لو تهور له حسينه أيام كبغنا وحناش وجرتيا ما دام صومالي سؤال كروضي عداد ولا وجرتها إن قلوب الله في الصحابة سادتين حدي بيع الله في الصحابة وبريت وقت الصومال عنده مسؤول هو حركة هو خارج أي كشيء عندي صوف الصحابة عندي أوجع عبنا يصير إلى قيوة كروتوش دكتور بابا ما دام إلى حزب وين وحزب هذا هي dadka beerkiisa u dareynay ahimihiisa in mafaariishta iyo maqaaxyaha iyo meelaha intellectuals u kulmaan iyo guri walba lagu hadlaya oo daruuri waa qof walba saameeya kulmi laba maadaama uu xisbi la yahay talada soo doonta xisbiga waxa joogay waqtigii sharciyadii in shirweyne yaa ka taagay soo dhow gabadha حزب الرجل الجروية وسيش وليس شلونها بيربلون يسوي روسيا على المنطقات طول فوق يوم كانت جنا وضرك في جنا وهو قام يدرس دوائر وصار وصار قال كلام شيء مدة كلام أبو هذا يوم هذا الباشر أي هذا البار تقوي خرط حزب هو فرطه إن شرعه هذا حزب الإسلام هذا إن أبو حضرته ولا حضرته كل هذا شرعته وحكوا له بيكي مجنون وحروا عضلها شعب سوالها وحضرت البرنامج كي حزب الكلية حكومة واحد صعدنا برنامج كي حزب الكلية هوشانا من حوالي من الحكومية من حوالي واحد قصة عيان برنامج كي إلى أحد أيضا كأوغل إعها إلى أهل بريان سوماليلاند قرن حرة وأدوك الإتفارسية ومرح بنا وأن مرة وقفة معين أيهم قائلة بقصة محايا مراد أهدن لي ويحوله الشركي وفيها دائما مرة بقعين وحيو إيري تقول سنة عطاء قارن اسم قرن سوماليلاند كمان قرن بقعين مكان كرام مايو قلت واحد إيه وانا والله يا إنك حركة وكانت arrimo badan oo xal u baahda ka horeysay baan anu aaminsanahay ama aan qornaa xisbi ahaan in maanta la tayeeyo marka dhibaato hor leh ayaan u aragnaa sanadka dib u habeynta ciidanka lagu sameeyo cunaqabateynta hubka laga qaaday Soomaaliya inay ku keenayso mujtamaca guud ahaan Soomaaliyeed Soomaaliland culeyskeeda ay ku leedahay dalisheeda waxa iska leh oo dusha uga saarana xukuumadda maanta talada haysa dhibaatooyinkii ay ka tagtay qaladaadkii lagu galay doorashadii golaha deegaanka ee dalka ka dhacday isla markaa waxa sabab u ah gundhigo ah khilaafka wali taagan iyo dhibaatada iyo dagaalkaas oo gacan ka hadalka le maanta ka dhacaya nidaamkii iyo qaabkii ay xukuumadda maanta talada haysa ay u xalinaysay ee u gashay problemka in wax la sanay isugu dayday taas ay ka dhalatay baan aaminsanahay maanta shaqada meesha ka taagan gacantii loo baahnaana xukuumad ahaan kama geysanin cidii xalkeeda keen lahaydna tala lama weydiinin markaas darteed mashaqada halka ka dhacday waa mid ay sababtay maanta nidaamka ay u maamuleen ama wasaaradda dakhliga ha noqoto ama guud ahaan xukuumadda ha ahaatee mushkiladii la tirsanayay iyo dhibaatadii golayaasha deegaanka doorashada ka dhacday ee degmada ka dhacday waa arrin ka dhalatay ilaa haddana waxaanu aaminsanahay inaanay dhabbihii lagu xallin lahaa aan xukuumaddu agta saarin waxaan u arkaa inay tahay daawac iyo dilaac hor leh oo ku soo diira Soomaaliland ahaan lama dalbaynahay xuduudeedu kala leeyahay laakiin waxaan qabaa inay culays mustaqbalka dhow ku keeni doonto taasna aan la garan karayn dhabta ah ee international community rajmada qurma ka dhaxaysa hadafka ay ka leedahay waa mid u baahan qeexin waa arrin mudan inaan bil looga diro xogayaha guud ee rajmada qurma ka dhaxaysa donmo markaa waxaan qabaa arrinkaas inuu yahay